السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بين وعلى وناس اللي ما أنت بملك سدود الإضافات دول لقد أول تال هل كانوا هذا التي في عيد مبارك مرة بعد مستحد وحلله لما أنتم كل عام وأنتم بخير. مدحوينها قرنka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa kala qayb galay bulshada magaalada Hargeysa ciidal fitrida iyo madaxweynaha ku-xigeenka dhammaanba iyo golayaasha hogaankooda dhammaantoodba waxay ka qayb galeen meelo kala duwan Jamhuuriyadda Somaliland. dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhammaan habariyo isaguna u diray bulshada Soomaaliyeed. dhinaca kale madaxweynaha Djibouti iyo bulshada Soomaaliyeed dhammaantoodba geeska Afrika ku nool ayaa badbaadinta kala hambalyeynayay. roobka ayaa ka curtay geeska Afrika dhammaangiiga Soomaalida kuwaasoo abaar aad u baanay haysan haasante laga soo kabanayo ilaahayna lagu mahadinayo. madaxweynaha lafta green ayaa harkaha u jaray oo soo hadalka u dhigay dowladda federaalka Soomaaliya xilligaas uu ku sugnaa magaalada Baydhabo soo ka soo kicitimay xaramka. madaxweynaha Xasan Sheikh ayaa si degdeg ah ugu duulay dowladda Itoobiya halkaas oo la filayo in arrimo mushkiladaha ka jira Soomaaliya inay ka caawiyaan. dhinaca kale magaalada Jigjiga ayaa markii ugu horeysay dowladda federaalka Itoobiya kaarka codbixinta laga qaatay magaalada Jigjiga. Iran iyo Mareykanka iyo Mareykanka ayaa wali elanka arrimahoodii iyo Israa'iil ayaa carqaladeeyay dhammaanba daafaca caalamka ganacsiga Soomaaliya kuwaasoo haatan meel halisa maraya lagana baqayo inuu dhammaanba daafacayo haatan dhaqaalihii adduunka hoos dhacaystaakina hawada u marayo. wararka Soomaalida wixii inta ka badan ee faahfaahsana warkayga fisan ayaa ku dhageysatay habeen wacana wanaagsan dhammaantiin markii soo joogtaan waxaad leenahay nabad qabiyo nolol kulante halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha ka mid ah laga daawataan ciid wacana dhammaantiin bad taqabbalaha minkum min saaxil al-a'maal ayaan leeyahay mar walba subxaanahu ku soo dhawaada warkii fitan. madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa kala qayb galay magaalada Hargeysa bulshada ku dhaqan magaalada madaxda Jamhuuriyadda Somaliland halkii madaxdii qaranka midka kale uu soo hambalyeynayay kuwaasoo ka qayb galay magaalada Boorama, Hargeysa, Burco, Berbera, Cerigabo iyo dhammaanba Somaliland. bulshada Soomaaliyeed ayaa ciiday markii la ciiday isla galabtiiba roob ka curtay geeska Afrika kuwaasoo mahadiyay. bulshada Soomaaliyeed ayaa iyaguna abaaraha ay aafaysay gaar ahaan Somaliland aad iyo aad loola tiicayay balse waxa loo maleynayaa in Ilaahay ka aqbalay ducadii ay muddada badan soddonka casha ay soo wadeen. madaxweynaha ayaa u fidiyay markii in muddo ka hor cafis bulsho badan oo reer Somaliland kuwaas ku xidhan jeelasha halka madaxweynaha Puntland isaguna cafis u fidiyay bulsho ku dhaqan jeelasha. dhinaca kale ergada Ciisa ayaa ka soo kacmay magaalada Jigjiga kuwaasoo ku sugan magaalada Hargeysa si wararku sheegayaan kuwaasoo la rabo horena madaxweynuhu la kulmay odayaasha gobolka Awdal iyo Sanaag haatan intii gobolada Awdal iyo Sanaag harsaneed oo kuwaasoo ergadoodu ay ku xidhan tahay magaalada Dirdhabe oo fadhigeedu yahay hogaanka Ciise iyo ugaaskooda ay ka soo kaceen kuwaasoo ku sugan magaalada kala rabo arrimihii ka dhacay Sanaag iyo gobolka Awdal in lagu dhameeyo gaar ahaan sidii looga heshiin lahaa fadqaladii ka dhashay xeer Ciise. ergada ku sugan magaalada ayaa la filayaa in si wada madal ay isu yimaadaan ergada beesha Samaroon iyo kuwa Ciise dhammaantood bay isu yimaadaan magaalada Hargeysa halkaasoo nabadaynta lagu soo xidhay goobjoogna kala wadaan salaadiinta iyo cuqaasha Somaliland inta laga macsuubi karo iyo golayaasha qaranka xeerkaasoo noqon doona markii heshiiskaas uu dhaco mid ka meeldhala nabadaasina noqota mid waarta. dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka mid yihiin Hirshabelle iyo Galmudug ayaa iyagu walaalanka aan ka hadal iyagu la sheegaya inay isku garab yihiin halka lafta green oo ku sugnaa magaalada Maka oo ka soo kicitamay xilligii Ramadaantii balse wasaaradda arrimaha gudaha ee Itoobiya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudi Arabiya ay ka kaalmeeyeen in aan lagu carqaladayn goobaha uu ka xashiyay sidalagana oo laba fadhi uga soo baxay ku soo degay dalka Itoobiya kaasoo haatan ku sugan isla markii uu yimina xidhada ayuu u jaray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaarkood sida dowladda uu hogaamiyaha ka yahay Puntland iyo Jubbaland ayaa iyaguna hore carqalad ugu jirtay Soomaaliya ayaa haatan la circiraysa tan iyo ansixintii dastuurka ayaa qabiyo qoraalka ah oo haatan laga dhigay madaxweynaha Gostaxay sala sheegay baarlamaanku loo codeeyay in qof iyo cod lagu bedeli doono halkii ay ahayd mid dadban
qaarkood ayaa kasoo jeestay sida Puntland iyo Jubaland kuwaasoo iyaguna haatan aan la filaynin inay xiriirka dowladda federaalka u jiri doonaan balse ay sheegeen inaan lagu kalsoonayn ciddii ansixisay iyo qaabka loo ansixiyey iyaguna aanay ka raali ahayn qodobada sharciga loo adeegsaday ama qaabka loo ansixiyey si kastoo haasaba dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda iyo bulshada ayaa kusii kala fogay halka marka loo eego magaalada Muqdisho iyadoo ay ka soo reynayso ganacsigeeda iyo maamulkeeda iyo mareegta la sheegayo qaraxyada iyo dhibaatadii al-shabaab ay ku haysay inay yaraadeen balse al-shabaab halkeedii ay taagan tahay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sikadiisa ugu kacay dalka Ethiopia kuwaasoo la doonayo oo si hadalka u dhigeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo warfaafinta ay sheegeen madaxweynuhu ugu jiro in la soo afjaro koonfur galbeed dhibaatada ka taagan ay kala kaashanayso dowladda Ethiopia ayna jeceshahay inaanay dowladda Ethiopia mar dambe soo fargaleen kuwaasoo markii hore ay sheegeen in lafta green ay dowladda Ethiopia caawisay taasoo si xooga ama ciidamo hoosta laga soo raaciyey lana keenay magaalada Baydhabo halkaasoo la doonayay markii hore wasi hadalka u dhigeen in lagu carqaladeeyo ama lagu joogsado oo ra'iisul wasaare ku sugnaa dalka Saudi Arabia lafta green lagu joogsado halkaasoo ay fashilisay dowladda Ethiopia wasi wararka isku eedeynta wararka hoose laga helayo madaxtooyada dowladda federaalka ee Soomaaliya halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha kamid ah naga daawatan madaxweynaha Xasan Sheekh iyo wixii ka soo kala dowladda Ethiopia insha Allah iyaga soo socda ayaan iyaguna halkan anaga idiga soo jeedin doona dowladda federaalka Ethiopia ayaa markii ugu horeysay dowladda federaalka Ethiopia markii ugu horeysay magaalada Jigjiga ka fulisay in laga qaato kaarka codbinta kaasoo qaatay in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Cagjar ayaa kaarkii ugu horeeyay maanta ka qaatay kuwaasoo dowlad deegaankooda lagu soo dooran dowlad goboleedyada deegaanadaasi dowladda federaalka Ethiopia ayaa rabta in deegaanada iyo baarlamaanka deegaanada kilka shanaad lagu soo doorto hab cod halkaasoo la rabo in baarlamaanka dowladda federaalka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyagana lagu soo dooran doono hab federaal bas dowlad goboleed kasta ama kilal kastaana uu xaq u leeyahay inuu federalismkiisa ka qayb qaato codeynta dowladaha hoose iyo baarlamaanka deegaanadaasi waa talaabo ama muddo dheer la sugayay dowladda Ethiopia oo ka qarniyo ah taasoo maanta loo jeestay in ay ka hirgasho dhinaca Soomaalida deegaanka kilka shanaad waana mid ay Soomaalidu ay aad iyo aad u soo dhaweysay Israa'iil iyo Mareykanka iyo Iran ayaa dagaalka bariga dhexe oo aad iyo aad u halaaceeya kaasoo uu iyagu u dambeeyay galay qarqir inay gacmaha faraha ka baxaan ama la soo adeegso hubka atomic bombka Israa'iil ayaa xoog ay u garaacday Iran halka Israa'iil ay garaacday iyo Mareykanka wada jiray Iran balse wali alaanka quwadii Iran ayaa taagan halkay maalintii shalay ahayd ay gantaal 400 kilomitir ka soconaya magaalada Tehran ay ku dhufatay saldhig uu ku leeyahay Hindiya Ingiriisku kaasoo la sheegay in isticmaalayeen ciidamada Mareykanka kala soo duulayay ama kaydad shidaal ay dhiganayeen si kastoo haataba bariga dhexe ayaa qarqar ku jira inuu karkaabada dhafowlow uu sheegay Trump maanta inay wada hadallo socdaan Iran kuwaasoo la rabo in lagu xalliyo khilaafaadka qaybta nuclearka iyo dhibaatooyinka ay geeskan Carabaha ku hayso Iran balse Iran ay waxay sheegtay in Carabaha iyo dowladda Islaamka iyo dowladda Jiraankeeda midna Iran balse la rabo in laga dhigto madaxeeda hoos loo dhigo aanay awood military iyo awood ciidan midna toona yeelan gacanteeda iyo madaxeeda hoos loo balse iyadoo ay sheegtay in ay madaxeeda hoos u dhigi doonin Israa'iil ayaa iyaduna ku sheegtay Mareykanku inuu og yahay hawlaha ay u taagan yihiin iyo waxay Mareykanka ka shaqaynayaan yihiin in ay dhibaatada Iran ay ku hayso in Jiraankeeda iyo Israa'iil ba loo baahan yahay mid wax laga qabanayo adduunyadana ay tahay mid xasiloon dareedeeda bariga dhexe dhibaato ku abuurtay si kastoo haataba waxa la sugayaa waaga soo socda in heshiiskaasi baqiimo dhal noqdo inay soo fargelisay jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa iyo Yurubiyaanka iyo kuwaasoo haatan aan ka mid ahayn waa markii koowaad ay Mareykanku dagaal galo oo aanay ka mid ahayn Yurub halkani waa hadal TV markii toddobaadkii maalmaha ka naga dheystaan wixii wari waxa ku soo kordhay dabayaaqada wiiga soo socda ayaan insha Allah bilmilaah dugsi tubanayna nabad qabiyo nolol kunte ciid wacan كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.